federalismka ama nidaamkan doorashooyinku hadda koor talisyada Itoobiya ka soo talin jiray waxa uu qaybsanaayeen kuwa boqortooyo ah oo boqortooyo oo dhaxal ku yimaado la iska dhaxlo ilaa Haile Selassie iyo markii dambe oo xukun military oo nidaamkii Mengistu ee dalkiga loo odhan jiray uu qabsaday waqti xaadirka waqtiyadaasi wax doorasho la yiraahdo caadi oo xoro free and fair election waxa loo yaqaan ama doorasho hal qof iyo hal codi dalka kameena dhici jirin laakiin waqtigii isbedelkii TPLF ee macnaha uu dhacay kacdoonkii militarigii dhargiga ee macangaga ahaa taliska lagaga tuuray xukunka laga tuuray waxa bilowday nooc min doorashooyin oo dadku inay codeeyaan oo asxaab loo tartamo oo magac ahaan ugu yaraan lagu tartamo oo xisbiyo kala duwan ay tartamaan ayaa bilowday laakiin taasi taariikhdii Itoobiya ayay macnaha waxa dhacday in arintaasi ay afduub kaliya xisbiga markaa talada hayay EPRDF uu afduubto oo doorashooyinkii kaliya magac ahaan ay u dhacdo oo khayraad iyo resource kaliya ay ku lubaan ayna noqon mid natiijo markaasi yididiile ay ka soo baxday inay noqon oo la iska garanayo oo wixii Soomaalidu odhan jirtay ahaa dooro nin dooran ay ahaan jirtay marka halkaas ayuu macnaha xisbigu isku cimaamadi jiray oo isagu xisbiga intuu macnaha ku soo hortoodo way jireen asxaab macnaha gacan ku rimis ahaa markaas oo isagu gacantiisa ku sameysmay doorashada inay qurxiyaan ugu talagalo oo la tartami jiro tartanka ka qayb gali jiray laakiin doorasho shacab weynuhu inta soo baxaan ay codkoodaasi inuu wax bedelayo ay aaminsanaayeen hadda koor kameena dhici jirin guud ahaan dalka Itoobiya iyo dawladda deegaanka Soomaalida gaar ahaanba waqti xaadirkan markuu isbedelku imika dhacay diila timiday dadkii hubaysnaa ee dawladda halganka hubaysan kula jiri jiray ayaa dalka gudihiisa ku soo noqday oo inta hubkii dhigeen ayaa waxay bilaabmeen halgan macnaha nabadeed oo qalinkooda inay ku dagaalamaan ayay bilaabeen macnaha halgankaas wuxuu dadkii macnaha hididila galiyo ammaankan dawladda deegaanka Soomaalida hadda laftigeeda uu ku raaxaysanayo deegaamada kale kaga duwan yahay iyadoo environmentiga ama jawiga siyaasadeed ee xorriyadda iyo nabadda ay ka faa'iideysanayaan ay urradii hubaysnaa sida OLF ama ONLF dawladda deegaanka Soomaalida inta hubkii dhigeen ay yiraahdeen macnaha qalin ayaynu wax iyaga ama waxaanu raadsanayno ay ku raadsanayna oo Itoobiya salaana hadii aad rabtid inaad ka goodid qodob waxa jira 39 oo dawladda deegaanka raba inuu go'o xitaa up to cessation waxa loo yiraahdo inuu ka go'o dalka intiisa kale isagoo the process yamaraya afti iyo wixii la hilmaamay inuu si nabada oo dalka intiisa kale kaga go'i karo dal madax banaan ku go'i karo waxa weeyaan waa qodob dastuuriya oo article qodobka 39 ee dalka Itoobiya Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ayaa dhigaya taas iyadoo isticmaalaysa Eritrea markaas 1995 ama 1990yadii bidix bartankiisii ay ka go'day marka waqti xaadirkan jawigani wuxuu saamaxay dadkii in ay nidaam iyadoo xorriyatul qowlka adeegsanayo oo macnaha maxaa yiraahdaayay environmentiga ama jawigaas abuurmay ee nabadgelyo adeegsanaya inay asxaab fara badan iyo dad si iskood isku sharaxaya ay doorashooyinkii isdiiwaan galiyeen marka waqti xaadirkan waxa la filayaa in ugu yaraan baarlamaanka heer qaran ee heer federaal ee Itoobiya iyo kan dawladda deegaanka Soomaalidaba inay ka soo dhax muuqdaan waxa rajo ee la qabaa inay ka soo dhax muuqanayaan mudanayaal xildhibaano oo ah mucaarida ama iskood u sharaxan taas ayaa la filayaa marka arintaasna waxay ku iman kartaa in kasto oo processka qaarkood oo dawladda deegaanka Soomaalida markay Oromiyo kale tusaale timaadada ama deegaanka Tigreega waxa ka jira qalalaasi siyaasadeed oo dawladda deegaanka Tigreega waxa ku xidhan macnaha maxaa dhahdaayay siyaasiyiin aad miisaan culus ugu leh siyaasadda dalka oo dhinac u ridi lahaa runtii miisaanka siyaasadeed ama loolanka siyaasadeed ee dalka oo Jawaar Maxamed iyo Baqala Garba ay ka mid yihiin marka dawladda deegaankaas oo kale doorashadii xiisaha lahayd dadku laba sano ka hor aad ka u sugayeen waxaad moodaa waxoogay niyad jab inuu dadkaasi ku yimidayo oo xisbiga kaliya hadda ka tartamaya waa xisbigan PP iyo xisbi kale oo Izeema loo yaqaan oo midigta fog ee Amxaarada oo raba inuu nidaamkii hore dalka macnaha ku celiyo laakiin xisbiyadii kale ee xoogagii dimuqraadiyad doonka ahaa macnaha federaal doonka ahaa ee sida OFC Oromiyo Federalist Congress iyo ONAG wixii la mid ah xubnahoodii waxay isugu jiraan qaar xabsiga la dhigay qaar macnaha dalka ka cararay iyo qaar property-goodii iyo hantidoodii iyo xafiisadoodii lala wareegay marka ani shakhsiyan rajo weyn kama qabo dawladda deegaamada gaar ahaan dawladda deegaanka Oromiya laakiin dawladda deegaamada kale oo dawladda deegaanka Soomaalidu ka mid tahay waxaan aad markaad eegtid ka go'naanshaha dawladda deegaanka laftigeeda Mustafa Umar oo isaga laftigiisu nin hadda ka hor xuquuqda bini'aadamka iyo xorriyadda u dagaalami jiray ahaa waxa uu rajaynayaa in uu macnaha masraxa siyaasadeed kula lolamo asxaabta mucaaridka oo jawi ay ku macnaha ku herdami karaan kale oo hadda laftigeedu ay ka cadahay hadallada saxaafadda la isku marinayo macnaha nooc xadaaradeed nooc min xadaarad dimuqraadiyad u eg ayaa dawladda deegaanka Soomaalida ka curatay ayaan dhihi karaa waqti xaadirkan adiga